السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديال meel kastoo adduunka ka joogtaan halkani waa Ilays TV oo maanta ku sugan gobolka Manitoba magaalada Winnipeg magaaladan waxaa ka dhacay shirkaas oo ah shirkii lagu mideynayay ummadda Soomaaliyeed waxaa shirkan haddaba shir gudoominayay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Ogaadeenaya ee gobolka Manitoba gaar ahaan magaalada Winnipeg mudane Farxaan Boojaale Farxaan ku soo dhawow إليس تي في. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن وريها إذا عدا إليس تي في إذا عدا قرن كوجدانية. أنا مرك ورئيس وانك سلامني وحن كاجم مهد علنيا ورئيس كان كدو بيسو شركة أنا منطقة وني قواني ومد الصومالية مدو جدا بان كاجم مهد علنيا مرك اللباد شرك بمانت دعي أو تاريخ ضدهاي بشي استبر لبديدي إلهي مهدي ضدك الصوماليات وإسرائيل شركة آديات بعضياشي يضدك يوردن من لماذا الصومالي آد بيوقف فرح سيهين وينتاجر سيهين ضدك إنه وهي تعليهن من لماذا والكردية أو جميسية إثيوبيا يو سيدنا أوكرا لمن لهن ضد باكش غينيا لكن dadka Soomaali oo dhan waa jecel yihiin midnimada Soomaaliyeed maantana midnimaanu gaarnay hadaan nahay gobolka Manitoba magaalada madaxdiisa Winnipeg dhammaan Soomaalida joogtay waanu isu keenay shirkaanu u qabanayna way isku raaceen inay halka ka sii wadaan taageerada shirarka midnimada qaranka Soomaaliya ee Somali State وهاجك آدي بعد ما حسنت هاي مدن قدومية shirkan aad magaalada Winnipeg ku qabateen muxuu ahaa ujeedada shirkan aad u qabateen maadaama tiin jaaliyada Soomaalida Ogaadeenaya ee ku dhaqan gobolkan Manitoba walaal Cabdiraxmaan oo shirkan waxaan u qabanay inaanu midayno Soomaalida joogta Manitoba gaar ahaan magaalada Winnipeg inaanu midayno oo ku midayno Soomaalinimo inay meel uga soo jeedsadaan xaqooda gaar ahaan Somali State ama Ogaadeenaya ama Soomaali galbeed qof kasta si kasta u yaqaana dadka dhulka ka soo jeeda inay u midoobaan xaq ay ka talinta ilaa heer ay ka talin ilaa xaq Itoobiya leeyihiin ayagoo mida inay raadsadaan baanu ugu yeernay anagana way naga ajiibeen alxamdulillah si fiican buu shirku ugu dhacay وهاجك shirkan yaa ka soo qayb galay mudane Farxaan waxaa ka soo qayb galay dhammaan horta odayaashii deegaanku way ka soo qayb galeen laba xubnood oo ka socota oo wafdi oo ka socota Edmonton gobolka Edmonton waa noo timid Cabdiraxmaan Ilkaase iyo Ahmed Ali Qabxuna waa noo yimaadeen ma sha Allah dhammaan waxaanu hambalyeynaa oo u mahad celinaa dadkii nagala soo qayb galay sida wariyaha Cabdiraxmaan Ilkaase oo kale oo noo matalayay xagga kaamirada xagga warbixinta ilaa Eritrea ilaa Africa ilaa wixii ka soo dadkuna ay aad ugu raaxaysanayeen hadaladii uu meesha ka jeedinayay dhammaantood iyo odayaasha Soomaali ee Manitoba waan salaameynaa garabkiinaanu leenahay وهاجك وفديgan idin timid maxay idin wadeen fariin noocay ah ayay idin wadeen waxay noo wadeen fariin midnimo Soomaaliyeed in ay dadka Soomaali midoobeen ay gudihiina ka yimaadeen dadka hadda jooga Manitoba looga baahan yahay in ay midoobaan ayaguna dadkii ay u wadeen fariintana way naga qaateen wayna naga aqbaleen alxamdulillah rabbil caalamiin وهاجك dhinaca kale waxaa jiray magaaladan community badan oo Soomaaliyeed ayaa jiray iyaguna qayb ma ka ahaayeen shirkan maanta ka dhacay ma sha Allah waa ka ahaayeen community aan joogin oo Soomaaliyeed maanta ma jiro shirka dhammaan community-da Soomaaliyeed way ka soo qayb galeen way soo ajiibeen aadna way ugu farxeen insha Allah kuwa waaweyn oo aanu qabanana waan ka dambaysiinana hadii Allah idmo inaanu kuwa dambe oo Soomaaliyeed isugu timaado qabanana waan ku rajaynahay waana naga aqbaleen community-da oo dhan ee Soomaalida ee Manitoba mudane maxaad u soo jeedinaysaa ummadda Soomaaliyeed ee sida tooska ah Ilays TV kaaga daawanaysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee Ilays TV ga daawanaysa waxaan u soo jeedinayaa marka horeysa waan idin salaamayaa meel kasta oo joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh midda kale midnimo Soomaaliyeed
dhammaantiin waxaan isku ognahay walaalayaal oo idin rajaynayaa midnimo soomaaliyeed wax wada qabsi iyo is-afgarad wanaagsan in aynu xaqeenna iyo jiritaankeenna iyo xornimadeenaba aan ku raadsano ogaag ummadda soomaalida ogaadeynaya maxaad iigana odhanaysaa waxaan odhanayaa walaalow shirarka annagu aanu ka qabanay dibadda ka socda adduunka oo dhan in idinkuna aada usoo jeestaan inaad shirar qabsataan idinka cid aada sugtaan yeena jirin wax qabsada maanta cid idin oburinaysa iyo cid afka idin qabanaysa ma jirto qof walooba shir baad qabsan kartaa xor baad u tahay fikirkaagaad soo dhiiban kartaa war way dhammaatay caburintii iyo fikirka aan anigu rabo ku hadal way hadhay dadka u shirar qabsada cid idinka celinaysa ma jirto fikirkiinana ku caddeeya ugu dambeyntii maxaad faraysaa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya ee maalmahan gudaha ogaadeynaya ku sugan waxaan farayaa jamaacadda horta marka horeysa waa salaamayaa guul iyo gobonnimo waxaan farayaa war dadkiina waxay rabeen bay maanta joogaane u sheega oo dadkiina ka saara in ay hadli karaan oo afka ka hadli karaan adinkana awalba way ka hadlayeen laakiin dadkeena afkaa laga xidhay dhagaha laga xidhay indhaha laga xidhay waa dad indhihii iyo dhagahaba laga xidhay war indha xidhka ka fura dadka oo dhaga xidhka ka fura oo futa xidhka ka fura oo dadkiina wax u sheega baan leeyahay shirar waaweynna u qabtaa waa hagaag aada iyo aad baad umahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa waktiga fiican ee aadna siisay mudane farxaan salaamullaahi cabdiraxmaan anaguna waan ku mahad celinaynaa waktiga aada noo hurtay eedna siisay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa hagaag kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ogaadeynaya ee gobolkaasi manitoba gaar ahaan magaalada winnipeg ee bartamaha dalkaasi canada waxaa soo tabinayay anigoo ah cabdiraxmaan sheekh oo si toosa uga socda ilays t v inta aan dib u kulmayno waxaan idin leeyahay fi amaan illah